صدحية طبعاً كبشنا عن كل مملكة جميسة إسرائيل وحو رعير كواد وباحد وين كوقاضي إيران ويرر كاسيو وحي اللاد وين وجيست حرومه النوكلير كإيران ويرر كان وحى كل انت صدح كم إذا هو جامياشي من التريو يكون شيران تليه جود عيدا مضى محمد بقهيري تليه عيدا كإلالة كعان كإيران حسين سلامي يمضي هو الجلدة جولام للرشيد والجلكن جميسته بحيه هو الجلك اللي باح كعايا وكفل جودها إيران أيا جلافتي بالشريدة يقار كم إذا سينسيها النادي ينشين hubka nuclearka ah ee Iran sidoo kale boqolaal ayaa ku dhaawacmay weerarkan ayaa khasaare baaxad leh u geystay horumarintii hubka nuclearka ah ee Iran oo meel gabagaba marayay gumaysaha oo daba taagna gaalkii weynaa ee Mareykanka ayaa uga gol lahaa weerarkan inuu joojiyo in Iran yeelato hub nuclear ah iyadoo xoga sirdoon sheegayeen in Iran qirka u saarnayd inay yeelato hub nuclear ah sanada gudahood kani ayaa ahaa weerarkii ugu xooganaa ee gumaystuhu ku qaaday Iran tan iyo 1980kii maalin uu kadib bisha inuu ku jirna jawaabtii Iran oo la dhiig baxaysa dhaawicii maalin ka hor loo geystay ayaa timid gumaystaha oo ogaa in jawaabta kululaanayso ayaa deegaanadiisa geliyay xaalad dagaal waxa uu xiray iskuuladii dadku wax ku baranayeen shaqooyinkii ayuu hakiyay iskuna diyaariyay jawaabta ka soo socota dawladda islaamiga ah ee Iran saacada ka bacdi jawaabtu sidii la moodayay waa ka cuslaatay Iran ayaa soo fasaxday wax ka badan 200 oo gantaalada balastiga iyadoo xogaha qaar sheegayaan in 400 oo gantaal ay gaarayaan darsinada diyaaradaha iyagu iswada ah iyo gantaalada guuxooda ka dheereeya Iran ayaa dagaal u diyaarisay kooxaheedii ay ku abuuratay bariga dhexe sida Xisbullah oo Lubnaan fadhida Xuutiyiinta Yemen iyo maleeshiyooyinka ka jira Syria iyo Iraq magaalooyinka gumaystaha ee Tel Aviv Ramat Gan Haifa Tamra Rishon Lizon ayaa noqday kuwa jawaabta Iran galaaftay saameyn aad u weyn oo ay ku jiraan xarumo wasaaradeed dhismayaal rayid xarumo shidaal sifayn xarumo kayd iyo in kale oo badanba xaafado cusub oo lagu waday in gumaystuhu ku beero Yahuud ayaa dambas noqday maalmaha ay dadka gumaystuhu ku hoos jireen dhulka hoostiisa ay uga gabanayeen gantaalada Iran oo target lahayn ku dhacaya meesha ay ku soo aadaan howlgalkan oo Iiraaniyiintu u bixiyeen howlgalkii wacadka runta ah ayaa noqday mid ka weyn wixii ay filayeen isbahaysigii soo daala tagay ee gumaystaha iyo Mareykanka inkastoo khasaaruhu u muuqdo mid baaxadiisu aad u weyn tahay haddana gumaystuhu wuxuu sheegay in 3 rayid ah ka dhinteen boqolaalna ka dhaawacantay laakiin baaxadda weerarka iyo gantaalada oo u badnaa kuwa ku dhacay bartilmaameedyo iyo meelo dadku ku badan yihiin waqtiguna oo ahaa waqti aan la filayn weerarka ayaa beeninaya sheegashada gumaysiga maanta oo taariikhdu tahay 15 bisha 6 wali gumaystaha Israa'iil waxa ku socda gantaalo balastiga drones iyo hoob kale oo raadaar ku qaban kareyn magaalada Haifa ayaan ilaa xalay helin hal saac oo nasasho ah iyadoo hubka noocyadiisa kala duwan ku dul hoobanayaan gumaystaha oo wali sii wada duqeyntiisii Gaza ayaa hadda aqoonsaday in jiida dagaal oo cusub ay ku furmeen dagaalkoodana halka uu ku wajahan yahay uguna weynaan doona ay tahay dalka Iran halka Iran ballan ku qaaday in dhaawicii gaaray aan la isaga hareyn la soco wixii abdayda oo rukumo bogoggeena Facebook ee juqraafi iyo YouTube-keena juqraafi haddii nala socotayna kolba soo daymo